calaykum waraxmatullah. Maalin baa nin ka mida dadkii wanaagsanaa yaa wuxuu lahaa adoon ama nin adoon u ah oo u khidmayn jiray. Kadibna waxa uu u dirsaday biyo oo ku weyse qaato. Ninka adoonka ahaa biyihii ayuu keenay, si nasiib xumo biyuhu waxay ahaayeen kuwo kulul mana uusan ka warhaynin. Kadibna ninkii ayuu biyuhu u dhiibay, gacantiisa ayay ka fakadeen. Biyihii kulaa waxay ku daateen ninkii adoonka loo ahaa. Kadibna aad buu u cadhooday, wuu xanaaqay, wuuna qayliyay, wuxuuna damcay inuu ciqaabo ninka adoonka ahaa. Markaas buu ku yiri, miyaadan xasuusanin hadalkii Alle? Wuxuu yiri, muxuu ahaa xasuusi hadalka Alle? Wuxuu ku yiri, walkaadimiina alqayd, kuwa caradooda qariya. Markaa buu yiri, kadamtu qaydii, waan qariyay caradeydii. Kadib ayuu haddana ku yiri, walcaafiina caninnaas, dadkana iska cafiya. Markaas buu ku yiri, cafowtu cank, waan ku cafiyay. Markaa buu yiri haddana, wallaahu yuxibbu almuxsiniin, allana waa uu jecel yahay kuwa wanaaga sameeya. Markaa buu ku yiri, waanta xurun liwajhillaah, adiguna maantay wixii ka bilowda alla dartii ayaan kuu xoreeyay oo xor baa tahay. Kadib waxaan ka baranaynaa qisada xikmadda ku jirta waxa ay tahay inuu qofku caradiisa uu qariyo, xanaaqiisana uu kontaroolo, iyo sidoo kale awoodda tasaamuxa uu leeyahay inuu qofku wax cafiyo, inuu qalbi wax cafin kara aad leedahay. Waxaa jirta Cali bin Abi Daalib yaa odhaah waxaa jirta uu kula dardaarmay dadka oo ahayd iyaakum walqadab fa awaluhu junuun wa aakhiruhu nadam. Waxaan idinkaaga digayaa carada ama xanaaqa. Bilowga hore waa waali oo qofku isma ogo waxa uu sameynayo, hadalkiisa iyo ficilkiisa midna ma ogo. Aakhirkiisuna waa shalayto oo hadaladii iyo ficiladii aad geysatay markii aad xanaaqsaneed dib baad uga shalaydaa. Ninbaa waxa uu yimid maalin Nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna ku yiri, rasuulka Alle ii dardaaran. Wuxuu ku dhahay Nabigu ha caroonin. Marar badan ayuuna ku celceliyay. Waxaad dareemi kartaa qofka marka uu caroodo wuxuu doonaba ka caroodo, yacni ma kontaroolo. Hadallada afkiisa ka soo baxay iyo ficiladiisuba waa kuwo aan ka fiirsasho lahayn oo hadhootadii uu ka shalaayo. Markaas waxaa la lahaa caradu waa dhimbil, waxay ka imaadaa shaydaanka, waxayna ku dhacdaa qalbiga qofka insaanka ama bini'aadamka ah. Waxaa wanaagsan marka qofku marka uu caroodo inuu aamuso amaba inuu cuudu billaysto, uu acuudu billaahi minash shaydaani rajiim uu dhaho.